xidigta caanka ka barta TikTok u dhalatay dalka Masar ayaa lagu xukumay 3 sano oo xariga kadib markii ay maxkamad ku taala Masar ay ku heshay dambi ku saabsan tahriibinta dadka. Xaniin Husaam ayaa lagu eedeeyay inay taageerayaasheeda ku casuuntay inay soo duubaan muuqaalo toos ah si ay lacag ugu bedesho. وما قلتش اتظلمت وما قلتش انا تعبت وما قلتش حصل لي اي حاجه وفتحتش بقي. waxay beenisay eedamaha loo soo jeediyay dadka u dooda arrimaha xuquuqda insaanka ee Masar ayaana sheegay in dacwadda lagu soo oogay gabadhana ay qayb ka yihiin hawlgallada ka dhanka ah haweenka saameynta ku leh baraha bulshada. كل يوم انفلونسرز بيطلعوا يعلنوا على ابلكيشن لايك او ابلكيشنات تانية. xaniin oo ah ardayad wax ka baratay jaamacadda Qaahira ayaa barteeda TikTok-ta waxaa ku xidhan in ka badan 900 oo kul oo qof iyadoo soo bandhigtay muuqaalo ku saabsan heesaha iyo qoobka ciyaarka. نفس القصة. حمل الابلكيشن ارفع الشاشة لفوق اصلي طالع لايف. مش لازم اقول لك حمله صريح او اقول لك ارفع الشاشة لفوق هتلاقيني في لايف. اللايف اللي انا كنت بعلن عنه ما فيهوش حاجة غلط بدليل المديرين الصينيين اتكفلوا في اول 4 ايام. رشيد بارع ديريال تيف.